gafanaha Gaarisa Cali Qorane ayaa afur u sameeyay qeybaha kala duwan ee dadweynaha Gaarisa sida siyaasiyiinta, culamaa diinka, shaqaalaha dawladda iyo qeybaha kale ee bulshada. Munaasabadan ayaa goor uu ka hadlayay gafanuhu waxa uu ku nuuxnuuxsaday ajendayaasha horumarineed ee u degan dawladdiisa iyo kaalinta ay shacabku ku leeyihiin taabagelinteeda. dawladdeenu waxa u malayn ay waacaga dhigatay project badan baa la bixiyay, horumar weyn waan doonaynaa. hadda dibadaan ka imaaday alxamdulillah, waxaan guul weyn ma soo gaarnay in horumar oo xagga wadooyinka inaan helno. maalin la weyd ogeydeen inta waxaan keenay World Bank iyo dad project oo 10 county ah oo 140 bilyan oo shilin, annaga 25 bilyan baan ku leenahay. insha Allah waan ka faa'iideysanaynaa. waxaan daba soconaa 3 dam oo weyn inaan county hadda kul dhow aan ka dhisno oo Madogaashi ward, Tanyere ward iyo Sangailu ward eh. taladan soo socda dilaayada waxaan la kulmay dawladda Belgium iyo World Bank iyo United Nations ka. waxaan rabnaa center of cancer inaan halkan ka dhisno oo dawladda Belgium ay noo dhisto. dhanka kale isku duwaha ammaanka gobolka Waqooyi Bari Ambassador Maxamuud Saalax oo munaasabadan ka soo qayb galay ayaa ka hadlay ammaanka gobolka, wuxuuna tilmaamay in ay shacabku door weyn ku leeyihiin kaabida ammaanka. ya kwanza ni kwamba wakati wa Ramadhan hawa watu wanaitwa al-Shabab wanaanza kumea pembe kidogo. Kwa hivyo ningetaka kujihadhari, mkiona mtu ambaye anafanana na al-Shabab piga ripoti kwetu tafadhali. Kila pembe ya Northeastern, hapana Garissa peke yake. Jana nilipigiwa simu na mzee mmoja wa Garissa kaniambia magaalada waa lagu jira kuwi magaalada waa lagu jira. ana waxaan ku dhahay anaga magaalada ku jirnaa marka waa ku wada jirnaa. lakini ukiona dalili ya kitu kama hiyo ya security tafadhali mtuambie, kwa sababu hii region lazima ipate amani ya kudumu. isku duwaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ku nuuxnuuxsaday in ay jiraan dadyo carqaladaynaya mashaariicda horumarineed ee deegaanka laga wado. dad baa ilaahay hunguri ka soo riday China ya porta loo galaya. hizo projects ni zetu ya Northeastern ya Kenya, wachana naye. mtu akiingilia hiyo project tutashika yeye. kama juzi mahali naitwa Nunu ambapo Shimbir kulikuwa na shida, jamii nyingine pale walikuwa na interfere na hiyo barabara, nikaongea na wazee, mimi mwenyewe nilienda huko tukamaliza. Sasa hii kuna shida huko Maalimin, jamii nyingine ya Ogaden, barabara hapa kama tafadhali. The power of information, it's here with you. Garissa Times Tube channel brings you updated news as it happens. Whatever you just need like is just click the like button, then give us a subscription at the bell sign. Then from there the story are gonna be flowing in as we update you day to day.